kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan furitaanka masjid iyo xarun islaami ah oo laga furay magaalada Windsor ee gobolka Ontario oo deris la ah magaalada Detroit ee gobolka Michigan ee dalka Mareykanka. Xaruntan ayaa waxaa furay Soomaali waxayna noqonaysaa xaruntii ugu horeysay ama ugu weyneyd ee Soomaalidu ay yeeshaan iyadoo dhalinyaradu ay ka faa'iideysan doonaan. Waa xarun aad u ballaaran oo ay markii ugu horeysay yeeshaan Soomaalida magaalada Windsor ee gobolka Ontario. Xarunta iyo masjidka Taqi ama Pius Islamic Center waxay ku taallaa bartamaha ama goob u sahlaysa dadka deegaanka inay si sahlan ku soo gaaraan. Waana xarun ku fadhida dhismo aad u ballaaran oo ka kooban masjid ay boqolaal qof ku tukan karaan salaadaha faradka iyo kuwa kale ee sunnooyinka sida ciidaha iyo taraawiixda iyo taajudka. Sidoo kale xaruntu waxay leedahay fasallo waxbarasho oo kala duwan iyo goob lagu ciyaarsiiyo carruurta oo ay ugu maarmi karaan inay aadaan meelo kale. Xarunta ayaa u dhammaystiran dhammaan adeegyada kala duwan ee loo baahan yahay. Sidoo kale xaruntu waxay leedahay elevator ama wiish u sahlaya in qofka uu si fudud ku tago qaybaha kala duwan ee xarunta ama masjidka, gaar ahaan dadka aanan awoodin inay isticmaalaan jaranjarada. Sidoo kale jiko ama kitchen looga faa'iideysan karo munaasabadaha kala duwan oo ay ugu horeyso diyaarinta afurka ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa xaruntaasi leedahay. Xarunta ama masjidka Taqi ama Pius Islamic Center ayaa sidoo kale leh howl lagu qabsan karo shirarka, meherka iyo adeegyada kale ay u baahan yihiin Soomaalida iyo dadyowga kale ee degan ee muslimiinta ah ee magaaladaasi. Haddaba qaar ka mid ah dadka aasaasay xarunta iyo dadka degan iyo kuwa dhalinyarada waxbara amaba ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada ayaan ka wareysanay iyagoo ka hadlaya faa'iidada iyo muhiimadda Soomaalida ay u leedahay xaruntan oo masjidkuna uu qayb ka yahay. Sheekh Bashiir soo dhaw waxay ka runtaa bal kulankan halkan isugu nimid waxa ku saabsanaa iyo xaruntan waxyaabaha Soomaalida ay ka faa'iideysan karto. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من كفر وجحد. وبعد وحو ku saabsanaa furinta centerka masjidka iyo dugsiga iyo Islamic schoolka iyo in dadkii ay arkaan centerkooda waxyaabo uu ka kooban yahay. Ma aha kaliya meel lagu tukado wax lagu barto, waa meel ilmihii entertainment ama ay ku ciyaari karaan ama ay wax ku baran karaan library wax la mid ah oo ku yaala cunadoodii iyo wax la mid ah. Marka runtii centerna waa muhiim inay yeeshaan qoom walba haddii ay meel yimaadaan. Nabi sallallahu alayhi wasallam markuu Madiina yimid waxyaabaha uu ka bilaabay muslimiinta oo jamciyay ee meel ku wada kulmaan waxay ahayd masjid. Marka Soomaalidana waxaan rajeynayaa inay noqoto meeshaan meesha ay ku wada kulmi lahaayeen ay dadkii kala tafaruqsan isku keeni lahaayeen insha Allah tacaala. Meeshaan waa meel muhiim ah runtii dhammaan muslimiinta dhan khaasatan dadka aan ka dhalana Soomaalida insha Allah. Wata marka aday soo koobay bal waxyaabaha ay ka faa'iideysan karaan Soomaalida adeegyada masjidka iyo xarunta ay leedahay bal hadaan nagu waranto. Bismillah. Runtii waxyaabaha ay ka faa'iidi karaan waxaa ka mid ah awalan inay diintooda islaamka ku bartaan. 2 Qur'aanka inay ku xifdiyaan. 3 in waxyaabaha ka jiro magaalada especially magaaladan Ontario oo ah qoom luud iyo wax ku saabsan in kaga badbaadi karaan Islamic school ay kaga faa'iidi karaan. Waxay kale ka faa'iidi karaan in youthka banaanka baxaya oo la duufsanaya meel ay ku ciyaaraan ay diintooda ku ilaalsadaan ayay helayaan. Kitaabaha tafsiirka Qur'aanka, kitaabaha sunanta kulli lagu akhrinayo insha Allah wax badan ayaa laga faa'iidaya insha Allah. Waa tahay dhalinyarada dhibaatooyin la kulmaan walow Toronto oo deris la ah Windsor oo halkan hadda aan joogna ah ay daran tahay marka loo eego magaalooyinka kale haddana weydandooda waa meel aad deris oo Soomaalida iska wareysa. Dhalinyaradaas dhibaatooyinka inay ku dhacaan si looga hortago xaruntan kaalinta laga qaadan kartaa. Bismillah. runtii kaalin weyn ay ka qaadan kartaa lianna waxay ahayd qasdigii ama ujeedada loo furo halkan in Ilaahay baa wax badbaadiyay laakiin dhalinyarta lagu badbaadiyo oo meeshan jiimkooda ku ciyaaraan. Dhalinyartu waxay
kullumaan markay iskuulka ka baxaan high schoolka especially dadka dhalinyarta youthka ama teenagerka nirahno waxay raacaan dhalinyaro kale meeshaasi ka bilaabaan drugskii iyo tuugnimadii wax lamid ah laakiin ma haysan meel ay ku ciyaaraan laakiin hadda meeshaani waxyaabo fara badan ay ka helayaan marka dhalinyarta waa ilaah baa wax badbaadiya laakiin meeshaan waa suitable waa meel ku fiican ku habboon in dhalinyartii loo helo community khaasatan insha allah waxaan rajeynaynaa inta dambena ilaahay inuu fududeeyo wata ugu dambeyntii soomaalida maxaa u jeedin lahayd بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أحبابي في الله صومالي وحن ليهي إلهي كبخا ميل والبعد جوكتان ودردارن كي نبيذو إذن الأمان وإلهي سبحانه وتعالى نوشي أمده دي أي كدر دارن مجرين أن إلهي دردارن كي سنوها إن أي دتك إلهي كبخان ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ودردانك رب سبحانه وتعالى تدكن أهري أنا كبا إن إلهي سبحانه وتعالى كبقنا مرك إلهي أن أوبقنا عبادتيسا إلهي أن أوبقنا الماء أن دلنا إلهي أن أوبقنا ودن كأنجونا إلهي أن أوبقنا دنيرتنا مرك مسنتر كاني وإذن باهنتاي وحامل الله هاي كسوحر علمينا إذن كنفتينا دين تاس إلهي هلو كالمه إن شاء الله تعالى ومسنتها شيخ بشير شيخ محمد نور قوي وإياك إن شاء الله waxay warantaa bal waxaan joognaa furitaanka masjidkan iyo xarunta guud ahaan waxay warantaa bal faa'iidada iyo muhiimadda Soomaalida u leedahay in xarun aan la helo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي horta waa nimco ilaahay nimcada ilaahay kugu manaysto waxa waaye in tacudu nicmata la ilaha tuhsuha nimcada ilaahay lama soo koobi karo waxa kamid ah maanta inaan hernay centerkan Pius Taqi center oo Islamic center oo ku yaala waliba meel center ah hadana oo ma aragtay community-geeni Soomaalida ay ku badan tahay labada dhinac hadaad northka xagga Riverside-ka aado on Detroit ma aragtay diris ka nahay iyo dhankan oo south-ka ah xagga airport-ka aadaba meel aan isleenahay runtii wadadii weyneyd oo takamsu saaran yahay caruurteena ay wax badan ka faa'iidi karaan labada dhinac markay imaadaan waa cidda aan ka hadlayo waa cidda ugu dhow cidii ayaga basas ku imaanay iyo gaari ku imaanay waa ka sii fiican tahay marka waxaan aaminsanahay ma aragtay inuu centerkan ilmaheena quraanka noogu baran doona billahi ta'ala in ma aragtay noqon doono meel entertainment ay ku sameystaan markay daalaan inta ka yar baxaan ku nasan karaan meel caruurta iskuuladii iyo jaamacadihii iyo intay imaadaan ku nasan karaan oo kutubadii ku akhrisan karaan iyo daraasaadkii wixii soo barteen ama xitaa library oo ma aragtay xitaa computer centerna u leh oo ay buugaagta ka soo qaataan ku akhristaan ayagoo daalan haddana salaadii marka la dimana ma aragtay meeshan salaadoodii ku tukan karaan ku sheekeysan karaan meel bulsho oo Soomaalideena isku hayn kartana ay tahay marka runtii waa aadan u bogaadinaynaa waan ku faraxsanahay waata Sheekh Hussein muddad dhalinyarada wax barisay magaalada Windsor waxay ka warantaa bal in xaruntan la helo maxay faa'iido ay ka helayaan dhalinyaradaas inay sii horumariyaan noloshooda waxaan dareemayaa runtii faa'iido badan inay noo leedahay caruurteena especially dhalinyarada awal waxa dhici jirtay inay meel kale u maaragtay tagaan oo masaajidka marka lagu tukadana meel kale aadaan hadda inay meeshan u soo doontaan ayagoo xitaa meel kale ku soo tukaday masaajidda kale iyo awood waxay u yeelan doonaan insha Allah inta masaajidkan noogu imaadaan inay maaragtay entertainmentigooda meeshan ku qaataan salaadahooda inay ku tukadaan maaragtay qaraabadoodana meeshan ay maaragtay isugu yeeraan ay dhigi karaan bal meesha la fure kaalay ka soo faa'iideysto oo xitaa kan aan salaada tukanaynin xitaa la soo gelin karo la dhigi karo kaalay library meeshan ku yaale ka faa'iideyso marka runtii faa'iido badan ay noo leedahay dhinaca kale waxaan dareemayaa annagii waan kala baahannahay oo ama Tecumseh Town aan degnaano ama aan degnaano La Salle ama Westigan degnaano caruurteena inay centerka ugu yaalo oo maanta dhinac ugu yaala la dhihin yaan aaminsanahay marka faa'iidooyin badan runtii aan dareemayaa in maaragtay caruurteena u yeelan doono insha Allah Sheekh aad u mahadsan aftax soo dhawo waxay warantaa bal dhalinyaro badan oo cusub halkan imaanaya dhalinyaradaas cusub iyo kuwii hore u joogay maadaama arrimaha dhalinyarada aad ka shaqeyso sidee isdhexgal u sameyn karaan oo ay u kala faa'iideysan karaan iyadoo xaruntan laga faa'iideysanayo ما شاء الله horta dhalinyarta cusub dhib badan ay ku qabeen inay dhalinyarta hore gaaraan manager xarun iskugu imaado ay Soomaalida leedahay hadda masjidkan waxaan rajaynayaa insha Allah inuu waxyaabo badan ku soo kordhin doono bulshada in dhalinyartii hore ay ku cusub isku xiri doona sidoo kale dhalinyarta wixii su'aalo diin ay qabaan sidoo kale tan imaamku weydiin doonaan luqadooda hooyo marka waxaan rajaynayaa centerkan wax badan oo soo kordhin doona hadii noqon lahayd xifdinta quraanka hadii noqon lahayd in ilmaha kale oo macnaha ay rabaan iskuul islaamiga inay bartaan ama barnaamijka sabti xad inay imaadaan oo ay ka faa'iideystaan sheekha marka waxaan rajaynayaa wax badan oo ku soo kordhin doona masjidkan in Soomaalida community Soomaalida magaalada Windsor ku nool
ama saddex. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka oo aan uga hadlaynay masjidka Taqi amaba Bais Islamic Center oo laga furay magaalada Windsor ee gobolka Ontario oo Soomaalidu ay yeelatay markii ugu horeysay xarun weyn oo dhalinyarada markaasi lagu tababaro lagu wacyigeliyo isla markaana masjid iyo diinta iyo ay ku bartaan caruurta. inta mar kale kulmi doona waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.